Assalaamu calaykum. Muuqaalkan maanta waxaan uga hadli doonaa akhrinta Qur'aanka. Nafteyda iyo naftiinaba waxaan ku baraarujinayaa inaynu akhrino Qur'aanka. Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu canhu ayaa wuxuu yidhi, waxaan akhriyay Qur'aanka bilowgiisa iyo dhammaadkiisa, mana arkin aayad ka rajo badan aayaddan. Nabbi cibaadii annii ana al-ghafuuru raxiim. Alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay, u waran u sheeg addoommadeyda inaan ahay aniga dembi dhaafe oo naxariista. Haddii aad tahay qof dhegeysta heesaha ama wax walba Ilaahay subxaana wa tacaala kaa xaaraantinimeeyey, ha ka tegin inaad akhriso Qur'aanka Alla subxaana wa tacaala. Sidoo kale haddii aad tahay qof dembi kasta uu sameeya, ha ka quusan Alla subxaana wa tacaala naxariistiisa, ha ka tegin salaadaha. Alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay, ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i walmunkar. Salaadu waxay kaa reebaysaa faxshiga iyo munkarka, wax walba xun ayay kaa reebaysaa. Sidoo kale marka la gaaro maalinka qiyaamo ama maalinta aakhiro, marka Ilaahay subxaana wa tacaala lagu soo horstaajiyo, waxaad ugu baahi badan tahay waxay tahay qof kuu shafaaco qaada, qof kuu dooda waaye. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay, alqur'aanu wassiyaamu yashfacaan. Qur'aankii soonkaba way kuu shafaaco qaadayaan. Asalaamu calaykum.